السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدفكو ودرين كو جهينيا معنانا كوغياليا نولوشا وسببتا آد subax walba hurdada uga kacdo adiga oo go'aan ku qaadanaya inaad riyooyinkaaga raadsato oo aad wax ka beddesho naftaada iyo adduunkaba. Helitaanka hadafkaaga iyo ujeedadaada nolosha ma aha hawl fudud, laakiin waa mid mudan in lagu dadaalo, juhdi iyo dadaal badanna la geliyo. Markii aad hesho ogaato hadafkaaga nolosha, waxaad noqonaysaa mid leh aragti, riyo, hadaf cad ayna tahay in uu xaqiijiyo noloshiisa iyo waxa uu rabo. Noqon maysid qof meel walba loo jiheeyo. Hadafkaaga aad hesho oo aad ogaato waxay kaa caawin doontaa inaad samayso go'aamo wanaagsan, inaad diiradda saarto go'aamadaada oo aad horay u socotid, xitaa markay arrimuhu adkaadaan, xitaa markii aad ciriiri iyo caqabado aad nolosha ku soo wajahaan. Mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo ujeedadaada nolosha waa inaad naftaada weydiiso su'aalo muhiim ah sida maxaa muhiibo u leeyahay, maxaa ilaahay aniga subxaana watacaala dheeraansho ii siiyey, maxaan dadka kaga duwanahay, maxaan jeclahay inaan sameeyo mar walba oo aanan ka daalayn, maxaa i farxad gelinaya markaan samaynayo, maxaa agtayda qiimo ku leh, maxaan rabaa in la igu soo xasuusto oo aan kaga tagaa bulshadayda iyo bulshada caalamkaba, maxay tahay raadka aan rabo inaan kaga tago dunida. Jawaabaha su'aalahan ayaa kaa caawin doona inaad daaha ka qaado ujeedadaada dhabta ah. Marka aad hesho ujeedadaada, waxaa muhiim ah inaad dejiso yoolal ku habboon ujeedadaada. Hadafyadani waxay kaa caawin doonaan inaad ku sii socotid waddada oo aad cabirato horumarkaaga. Arrinka kale ee muhiimka ah oo kaa saacidaya inaad ahdaaftaada xaqiijiso ayaa ah inaad naftaada ku hareerayso dad kula wadaagaya qiimahaaga, shakhsiyadaada, awoodda kugu duugan, awoodda aad u leedahay inaad xaqiijiso, kugu taageera yoolashaada. Dadkani waa dad mar walba kugu boorinaya, ku dhiirigelinaya, kugu riixaya inaad noqoto qofka ugu fiican ee aad noqon lahayd, ee aad naftaada la jeclaan lahayd. Xusuusnow, ujeedada nolosha waa mid adiga ku gaar ah, ma ahan wax aad hal habeen ku heli kartid, ku soo shacsaari kartid. Waxay u baahan tahay waqti, dadaal, u hurid in aad u hurtid wax walba. Laakiin markii aad soo shacsaarto, ogaato ujeedadaada, waxaad la kulmi doontaa dareen farxadeed oo aadan weligaa horay u dareemin. Waayo markaadan lahayn ujeed nolosha, waxaad tahay dameer dhaan raac, meel walba iyo notification walba mid ku booda. Waxaa tusaale cad kugu filan bulshadeena dadka ay ku xiran yihiin, dhallinyaradeena dadka ay ka qaadanayaan ama role models u ah dadka ay ku xiran yihiin. Ma aha dad adduun iyo aakhiraba badankood ay wax ka faa'iidayaan. Sababta ay u raacayaan, u follow garaynayaan, u daawanayaan ayaa ah inaysan haysanin dhalintani iyo dadkani ujeeddo cad ah ay ka leeyihiin nolosha. Halkaas ayuu waqtigoodii, cimrigoodii, noloshoodii ku baaba'aysaa, kagana kacayaan markay telefoonka damiyaan qoomamo iyo ciil shalay aan waxba u soo celinayn. Inta ay goorigoor tahay, baadigoob u gal, sahmi, raadi ujeedadaada, naftaadana cadaadis ku saar inay noqoto sida ugu wanaagsan ee aad jeclaan lahayd inay noqoto. Qofka ugu wanaagsan ee aad jeclaan lahayd inaad noqotid oo ahaatid. Naftaada mar walba ku saar cadaadiska inaysan ka daalin helidda hadafkaaga nolosha. Almost hadday kaa dhab tahay, baadigoobka aad ugu jirtid hadafkaaga gacanta ayaad ku haysaa. Waxay sugaysaa inaad soo saarto, soo shaac saarto, adigu aad ogaatid. Annaga dhammaanteen ayaa u wada baahan dhalinteena inay noqdaan kuwa hadaf iyo ujeed nolosha ka leh. Soo saar oo wax ka bedel naftaada iyo adduunkaba. Ogowna, sina laguma niyad jebin karo markii aad hadaf cad nolosha ka leedahay. Waxaan idinka tegayaa dhammaantiin fi amaanillah. Fadlan haddii aad wax ka faa'iiday, la wadaag asxaabtaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.